ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka beesha Sheekhaal Gandarshe ayay kaga hadleen boob ay sheegeen in lagu sameeyay kursiga beeshaas ay ku lahayd golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo habraha caasimadiisu tahay Hoob Eber 45 kursigan oo deegaan doorashadiisu tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ay sheegeen beeshu inuu madaxweyne lafta gareen la rabo shakhsiyaad aan waxba ku lahayn sidoo kale iyagoo carabka ku adkeeyay in aysan marnaba ogolaan doonin in kursigooda cid kale la siiyo iyagoona baaq u diray ra'iisul wasaare Rooble beesha caalamka iyo gudiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleedba maanta waxaan dacwo ka nahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen maxaa yeelay annaga waxaan nahay beelbeenta Sheekhaal Gandarshe todobada tol Sheekhaal Gandarshe waa fadhina waana u dhagnahay wax nagu sameeyay darbaaxida uu nagu dhuftay ayaa xanuunkeedna ayaa isu keentay inaan maanta ka dhiidhino ma aragtay hadduu ilaahay ku ruuyahay kursigii Gandarshe ay lahayd qolo asaga gurigiisa uu ku naas nuujinayay ayuu maanta wuxuu u gartay in beel dhan uu ku dhaco todoba tol Sheekhaal Gandarshe inuu dhaco todoba qabiil oo hal beel wax siiyo marka taasa sukaana keentay taasaan ka dhiidhanay waana ka kululaanay Cabdicasiis Maxamed lafta gareen waxaan dareensanahay waxa uu sameeyay Sheekhaal Gandarshe aqoon uma laha asaga waxa uu sameeyay waa ku turunturooday sidaas ay ila tahay aniga inuu ku turunturooday ayaan u arkaa Sheekhaal Gandarshe aqoon uma laha inuu maanta na dhaco oo kursiyeena ma aragtay qolo kale inuu siiyo uu damco waxa uu geesay aqoon daro Cabdicasiis ninka kula hadlay waa taqaanaa waa Suldaan Ibraahim Maxamed Axmed Sheekhaal Gandarshe waa dadka aad taqaano imaashahaaga ka taliyay maanta Hoob 45 in aad adiga waxaad rabto ka samaysato inaad iska ilowdo aan kala dardaarma hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay ku heshiisay calankaas iyo federaal xubin ka mid ahaan nahay calankaas iyo maamul Koonfur Galbeed waxaad iska ilowdaa waxa aad qoqoshayso inaad iska hilmaanto Allah ku tusiyo Soomaaliya waxay ku taagan tahay qabiilka annaga ka dhalanay lafaka baryi maayaan adiga insha Allah ta'ala umad aanan ishaysanha istusin ku hadlaayo magaca siyaasiyiinta ee beesha Sheekhaal Gandarshe beelweynta Sheekhaal Gandarshe waxaan halkan cabasho aaga nahay maamulka oo hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Maxamed lafta gareen oo kursigeena boob ku wado oo u dhacay shakhsiyaad aan u dhalanin deegaanka iyo qabiilka kuraastan shalay markii la qeybaysana waxa lagu qeybsaday 4.5 Sheekhaal Gandarshe orto meel kasta ay degtaa meel kasta ay deegaan ku leedahay laakiin markii anaga halkii kursi ee hadda aan nasiibka u yeelanay nala siiyay waxa la geeyay Koonfur Galbeed oo yaala oo deegaan doorashadiisa oo yahay aan ka soo jeedno halkii kursi wuxuu rabaa inuu siiyo reerkiisa familkiisa ah oo aan u dhalanin beesha Sheekhaal Gandarshe waa la yaqaana 7 jufo waaye 7 oday ay leedahay oo hor kacdo marka nin kale oo beel kale u dhashtay oo aan shaqo ku lahayn inuu oo si Cabdicasiis qalad ay ku tahay oo xaq daro weyn ay ku tahay waxaan baaq u jeedinaynaa annaga oo mideysan oo bulshada dhan ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxaan kale oo baaq u jeedinaynaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Rooble waxaan baaq u direynaa guddiga doorashooyinka guddiga khilaafaadka intaba waxaan leeyahay arintan waa xaq daro oo cad oo geed aan loogu soo gambanin Sheekhaal Gandarshe waxaan leeyahay dad oo la boobi karo ama laga tirtiri karo saaxada maaha waa ku qaldantaan dhiilaha madaxweyne Cabdicasiis arintan ka fiirso wiil iyo gabarbo wallaahi oo billaahi oo tallahi inaan loo kala hareynaan dhiilaha u sheeg qofkii rabto ummadaaneeti in la xaqooda la dardarsi cid looga ogolaanayo ama looga heebeysanayo marka anaka waxa meeshan uu soo keen wax waaye boobkan ka socdo Koonfur Galbeed boob inoo socdo doorashooyinka dhan boob badan ayaa ka jiro waa la yaabi jiri laakiin tan hadda oo Sheekhaal Gandarshe ku dhacday waa la yaabo ay noqotay beel nin loo xir waa la arkay kursi nin loo xir waa la arkay kursi nin laga qaado nin kale la siiyo oo beesh kamid ah waa la arkay laakiin Sheekhaal Gandarshe tan ku dhacday wax wili la arkay iyo caalamka dhan aan u sheegaynaa wax la arkay ma ah
waana ka xunnahay arrintaasina waxaan u jeedinaynaa maamulka koonfur galbeed waxaa loo dhici rabaa dad oo guryihiisa jooga oo asaga oo macnaha kursiimadiisa ka qayb qaatay laakiin annaga ma yeeleeno mana qaadan doono insha Allah gabar ma naga hareysa gabar waxaan leedahay muxuu ahay wixii meesha ka dhacana mas'uuliyadaas adaa qaadaysid waxaan leeyahay macnaha joog lafta gareenow dad badan waa ku sirmata shiiqaal gandarshaha ku sirmani ugu dambeyntii warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob ayay soo saareen beesha shiiqaal gandarshe waxaana warbaahinta la wadaagay Cabdullaahi Baalbaalow waxaan u sheegaynaa guddiga doorashooyinka oo heer maamul goboleed koonfur galbeed iyo madaxweyne cabdicasiis in ay waxa ay ku kaceen ay tahay wax aan loo dulqaadan karin oo aan ku salaysnayn heshiiskii 17 September oo Soomaali Maxamed ay ku heshiisay oo kaasoo qorayay in kursi walba reer cidda iska leh ay u tartanto si xaq iyo xalaal ah maanta waxaan aragnay dadkii soo xulayay ergada oo la soo bandhigay in ay yihiin dad aan shiiqaal gandarshe ahayn qodobka labaad waxaan rabnaa si gaar ah inaan beesha caalamka iyo adduunka iyo maxaan ku dadka ay qosayso arrintan oo ugu horeeyo guddiga heer federaal in arrinkaas arrin xadgudub weyn uu yahay oo aan loo dulqaadan karin beesha shiiqaal gandarshena aysan marna ogolaanaynin hawshaas oo dulmiga xadka aan lahayn ah Nimam Muxudiin Cardoofe Somali Cable magaalada Muqdisho